waxay ahayd fursad wanaagsan oo ay rajeynayeen in ka badan 7 sano ee la soo dhaafay bahda ciyaaraha kubadda cagta kolayga iyo qaybaha kala gedisan ee sportiga taasoo ku aadneed in ciidamada Amazon ay ka baxaan garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho kaas oo la dhisay 1978 waxaan idinku wareejinay maanta stadium garoonkan waxa ku yaala in ka badan 10 garoon oo inta badan martigeliya tartamada maxalliga ee gudaha waxaana xiriir kubadda cagta Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay ee albaabada u garaaceen sidii garoonkan looga saari lahaa ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya u joogay Amazon hadaba qaar ka mid ah dadkii iskugu soo baxay banaanbixii soo dhaweynta markii ay Amazon ka bixin garoonkan ayaan kula kulanay garoonka waxayna ka hadlayaan dareenkooda ku aadan hamuunka ay u qabaan inay mar kale arkaan Stadium Muqdisho aniga ciyaarteydii ugu horeeyay garoonkii aan ku dheelo ahaa koor garoon maaragtay kii ugu weynaay Afrika isboortiga garoomada ugu waaweynay uu ku jiray sidaas darteed annaga marka garoonkan markii annaga soo bixinay oo ciyaaraha aan maaragtay ku soo barbaareynay waxaan garoonkii aan ku bilaabo ciyaaraha oo naadigii ugu horeeyay gorgora la dhaayo aan u ciyaaro gorgor markii igu horeedo aan dheelo waxaan ku dheelay garoonkan Stadium Muqdisho laakiin nasiib wanaag maysan helin dhalintii annaga naga dambeeyay inay garoonkan ku ciyaaraan burburkii wixii ka dambeeyay dhan laguma ciyaarin waxa loo wareegsaday Stadium Konis oo hadda banaadir loo bedelay magaciisa marka garoonkan garoon wuxuu ahaa aad u qiimo weyn oo ciyaartooy tayo badan ay ka soo baxday haddeertaana waxaan rajaynaynaa haddii shaqada saxda lagu qabto in garoonkan uu ka soo bixi doono ay ku soo bixi doonaan ciyaartooy aad u ballaaran oo maaragtay dalka iyo dadka wax badan u tari doona garoon la'aantana hayso iyo sidoo maaragtay uu nooga maaragtay baaba'sanay kan wax isla ma ahan garoonkan kaligiis ma ahan kan waa kii oo maaragtay naadiyada waaweyn ay ku dheelayeen laakiin banaankiisa haddana waxa ku yaalaan garoomo kaleeto yar yar oo tababarada iyo alamentada iyo degmooyinka ka faa'iideysan jireen waxaan deganahay garoonka agaarkiisa meesha waxay ugu dambeysay aniga 13 sano jiro oo aad u yar oo ku dheeli jiray garoonkan gudihiisa ma ahan banaankiisa dhinaca dhoobada xaqiisa alxamdulillah maanta waan ku faraxsanahay aniga maanta oo nin weyn ilaa ibaado 12 sano kadib aad iyo aad ugu faraxsanahay shalay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu boqday garoonka Stadium Muqdisho wuxuuna si rasmi ah u la wareegay in ciidamada Amazon ay si rasmi ah uga ambabixeen tuulada ciyaaraha wadanka where people come here for their pastime and enjoy to watch xiriir kubadda cagta Soomaaliya oo dadaalo ugu jiray sidii garoonkan ay gacantooda ugu soo dhigi lahaayeen ayaa sheegay inay arintan tahay talaabo wanaagsan oo hore loo qaaday waxaana garoonka Stadium Muqdisho kula kulanay gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Ali Cabdi Maxamed Shiine wawdiina shaqo bilaabatay garoonkana inaan dhisaan rajeeyna waqti dhow ka bacdina waxa lagu ciyaaro gudaha iyo dibadda soo jira dileeraad waxaan leenahay aad ugu faraxsanahay farxadan qaybtan ka qaadanayna garoonka la hayaa wax dhibaato ma jiraan insha Allah nabada soo noqotay waana farsanana ciyaaraha dileeraad maamulka sportiga gobolka Banaadir ayaa iyaga qordhooda soo dhaweeyay arintan taariikhiga ah ee ku aadan in dib loo howlgeliyo garoonka Stadium Muqdisho waxaana gudoomiyaha sportiga gobolka Banaadir Xasan Wiish uu sheegay inay tani fursad siinayso dhalinyaro badan si ay u helaan meel wanaagsan ay ku ciyaaraan maadaama hadda caasimadda ay ka jirto garoomo yari fursadna ay u heli doonaan ciyaartooy badan oo ka soo baxda degmooyinka iyo tartamada maxalliga ee gudaha iyo sidoo kale soo dhaweynta caasimadaha bariga iyo bartamaha Afrika marka hore waxaan hambaleynayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba joogta caalamka maadaama tuulada sportiga Stadium Muqdisho dib ugu soo noqotay gacantii sportiga waxaan kaga mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu qaadir ah kadibna waxaan kaga mahadcelinaynaa dawladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dabcan maamulka gobolka Banaadir wuxuu kaga dhigan yahay sida ala socotaan magaaladan waxaa ku nool qiyaastii 3 milyan oo bulshada 3 milyan boqolkiiba 75 waxa lagu qiyaasay dhalinyaradaas dhamaantood xiiseeso ciyaaraha sida ala socotaan maamulka gobolka Banaadir wuxuu abaabulaa ciyaaro kala duwan oo degmooyin haddii ahaan lahayn dugsiyada iyo ciyaaro badan oo kala duwan garoomo ku filan magaalada ma ka jirin marka fursad weyn ayay u tahay qiimo weyn ayay ugu fadhisaa maamulka gobolka Banaadir
in maanta gacanta ummadda Soomaaliyeed ama gacanta isboortiga ay ku soo laabato garoonkan oo muddo 30 sano ah waxba activity ah lagu qabanin. tuulada ciyaaraha sportska Soomaaliya Stadium Muqdisho ayaa qaada in ka badan 60,000 oo taageero kulankiiba waxayna rajo abuur u tahay dhalinyaro badan oo xiiseynaya in mar kale ay ciyaaraha wadanka ka daawadaan iyo soo kale martigelinta tartamada bariga iyo bartamaha Afrika